gudoomiyaha ururka dhalinyarada gobolka Hiiraan ee maamulka degmada Jallaqsi ayaa ka qayb galay doorashada gudoomiyaha ururka dhalinyarada degmada Jallaqsi oo lagu qabtay isla degmadaasi. doorashadan oo ahayd mid xiiso badan ayaa waxaa ku tartamay laba musharax waxaana natiijada doorashada ku dhawaaqay afhayeenka ururka dhalinyarada degmada Buloburte Cabdullaahi Faarax Aadan. maanta halkan waxaan u joognay doorasho ka dhaceysay hoolka shirarka ee degmada Jallaqsi. doorashadaas oo ahayd in la doorto gudoomiyihii ururka dhalinyarada ee degmada Jallaqsi, maadaama in muddo ay si ku meel gaar ah u shaqeynayay gudoomiyihii hore waxa laga maarmaan noqotay in gudoomiye sax la doorto. sidaa daraadeed degmada Jallaqsi waxay samaysatay guddi doorasho iyo ergo wax doorato. maamulka degmada Jallaqsi iyo laamaha ammaankana goobjoogayaal ay ka yihiin. doorashada waxay u dhacday sida soo socoto. Ismaaciil tirada guud horta waxay ahayd 23 xubnood oo guddi ah ayaa wax ergada ahayd oo halkan waxa ku dooratay 23 ka xubnood 3 xubnood codadkoodii wuu halaabay. Nuur Cabdulla Shaarib wuxuu helay 3 cod. 17 codna waxaa helay Ismaaciil Cilmi Guure. sidaas daraadeed natiijada doorashada waxaa ku guuleystay gudoomiyaha ururka dhalinyarada degmada Jallaqsi Ismaaciil Cilmi Guuro laga bilaabo maanta oo taariikhda tahay 9 bishii 4 2019. waxaa ah gudoomiyaha ururka dhalinyarada degmada Jallaqsi Ismaaciil Cilmi Guure labada sano ee soo socota insha Allah taala. gudoomiyaha cusub ee la doortay Ismaaciil Cilmi Guure ayaa ka darin celiyay doorashadan uu maanta ku guuleystay wuxuuna sheegay inuu horumarin doono ururka dhalinyarada degmada Jallaqsi. salaan kadib runtii aad ayaan u faraxsanahay farxadda iga tan badatay ma hadli karo. maanta waxa meeshan ka dhacay doorasho xor ah oo xalaal ah. waxaa si rasmi ah oo toosan isku doortay dhalinyarada degmada Jallaqsi isagoo waliba goobjoog yahay gudoomiyaha dhalinyarada gobolka Hiiraan. runtii markaan soo aaday doorashada waxaan ku soo baxay amba waa guuleysan doontaa amba waa laga guuleysan doonaa. maxaa yeelay Soomaalidu waxay tiraahdaa laba dhagax hadii isku dhacdo mid unbaa jabo. waxay kale tiraahdaa gari laba nin ka wada qosliso. runtii waa guuleystay aad ayaan ugu faraxsanahay. waxaan u mahadcelinayaa walaalkayga ila tartamay Master Nuur. waxaan kaloo kun iyo kow jeer u mahadcelinayaa gudoomiyihii dhalinyarada ee hore mudane Maxamed Xuseen Dardar oo runtii xilli adag soo shaqeeyay. runtii waxa iga filaysaan dhalinyaro isbedel aad u weyn oo iyo horumar ayaa iga filaysaan insha Allah waana gaari doonaa. sababtoo ah dhalinyaradu waa laf dhabarta bulshada meel kasta ay joogaan. sababtoo waxa la yiraahdaa Afrika 70% waa dhalinyaro. dhalinyaraduna waa maragtahay waa dadka sida qaldan loo adeegsan karo sida saxda ah maragta hadii loo wacyigeliyo oo shaqay karo. taliyaha saldhigga booliska degmada Jallaqsi Muuse Salaad ayaa u hambaliyay gudoomiyaha cusub ee ururka dhalinyarada degmada Jallaqsi. salaan kadib runtii waxaan marqaati ka nahay in ay munaasabad weyn oo lagu dooranayay ururka dhalinyarada degmada Jallaqsi halkan ka dhacday isla markaasna natiijadii ka soo baxday ay ahayd natiijo xaq ah xor ah xalaal ah. annagu ka يعني أمنيهان iyo ka booliis ahaan waxaan goobjoog ka ahaynay sidii doorashadaas u dhacday. waxaan ka marqaati kacaynaa insha Allah taala sidii doorashadaas u dhacday inay xalaal tahay. waxaan rabaa marka inaan gudoomiyaha la doortay Ismaaciil aan hal dhaho. insha Allah waxa la yiraahdaa asgarta asgari xumay ma jira la yiraahdaa taliyiisa. marka dhalinyaro xum ma jirtee hogaanka xunaan leh insha Allah taala inaad noqoto hogaan sax ah. taas ninka waxaan kula dardaarmaa gudoomiyaha cusub. ugu dambeyn gudoomiyaha ururka dhalinyarada gobolka Hiiraan Maxamed Cabdullaahi Buraale Raaxaye oo goobjoog ka ahaa doorashada maanta ka dhacday degmada Jallaqsi ayaa si aad u bogaadiyay xanaanka wanaagsan ay u qabsoontay doorashada hogaanka ururka dhalinyarada degmada Jallaqsi. doorashadan maanta loo qabanayo ururka dhalinyarada degmada Jallaqsi oo runtii nasiib wanaag aan maanta goobjoog ah. waxaan rabaa in aan idin sheego doorashada micnaha ay leedahay iyo markii lagu magacaabo micnaha ay leedahay. mar haddii lagu magacaabo waxba ma tihid. sideedaba urur dhalinyaro waa doorasho sida ku quruxda badan. mararka qaarkood ma aragtay mar hadday imaado dano si gooni ah
dhibaatooyin markaas sababaya inay jirto oo laga yaabo loo magacaabo laakiin maanta waxaa nasiib wanaag afartii degmo oo kale ee gobolka aan goobjoog ahay tii u dambeysay inaan maanta goobjoog ahay doorashadiisa waxaan rabaa inaan halkan aan si gooni uga dardaarmo gudoomiyaha dhalinyarada degmada Jallaqsi ee maanta la doortay gudoomiye ku-xigeenka xogayaha guud afayeenka dhammaantiin waxaan rabaa inaad si fiican u wada shaqaysaan inaad noqotaan dad midnimada ka shaqeeya waxaad tihiin dhalinyaro xoogii dalkaana tihiin waad ogtihiin gobolkeena dib u dhac iyo dhibaatada haysto waxaa la rabaa marka inaad si fiican aadna uga qayb qaadataan howlaha horumarka degmadan insha Allah hadda wixii ka dambeeya wada shaqayn buuxdaan yeelan doonaa haddaad ii jirteen anagu waanana hilmaamay maanta waa idinla joogaa gudoomiyaad leedihiin la doortay oon aniga taaganahay dabcan waxaan rabaa inaad gudoomiyihina la shaqaysaan annagana insha Allah anigoo weliba gudoomiyihii dhalinyarada gobolka ah waqtiga inta ii dhimanna inaan si fiican u wada shaqayn doono gudoomiyaha iga dambeeyana maaragtay si fiican aad ula shaqaysaan maadaama uu yahay gudoomiye aad ka dooran doontaan